garoonka Kuleed Stadium ee magaalada Djibouti waayay seerigina waa la yeeriyo Soomaaliya ayaa ku badi baasatay Cabdi Casiis Maxamed Catoosh waa uu soo gadiyay wata Axmed Kroos waa iska saareen Soomaaliya fursad fiican ayaa lagu helay waa kan markan ciyaartooyda qaranka ee Djibouti ayaa faawul loo dhigay madax qurux badan ayuu markaas shabaqa aadiyay laakiin waxa ay ku dhacday birta iyadoo goolaya Saciid Aweys meel wacan waa kan markan fursad qaaliya Kroos gool Soomaaliya gool فيصل أحمد فيصل ayaa dhalinaya goolkii koowaad ee ciyaarta فيصل أحمد ayaa dhalinaya goolkii koowaad ee ciyaarta Soomaaliya gool Djibouti eber Soomaaliya gool Djibouti eber فيصل أحمد ayaa goolkiisii labaad garoonkan ka dhalinaya فيصل أحمد ayaa goolkiisii labaad ka dhalinaya halkan qaranka Soomaaliya ayaa goolku hogaaminaya ciyaarta waxa uu dabaaldeg ka bilaaban doonaa magaalada Muqdisho waxa uu dabaaldeg ka bilaaban doonaa gobolada Soomaaliya waxa loo soo dhaweyn doonaa ciyaartooyda qaranka Soomaaliya haddii natiijadu sidan ay ku dhamaato Soomaaliya gool Djibouti 0 Astaan Sports ayaad nagala socotaan Soomaaliya wali Cabdi Casiis Catoosh Faisal Soomaaliya ayaa goolkii labaad la timid qaranka Soomaaliya ayaa dhalinaya goolkii labaad ee ciyaarta xulka qaranka Soomaaliya waa dhaliyeen mar kale doonil ayaa sheekadu noqotay Djibouti حالكم أسكننا جيبوتي حالكم أجاكسنا جيبوتي وحباك قلدن عيارتو إذا قرنك جيبوتي وكان مركن عبد العزيز محمد عطوش كروس إسماعيل ترينيل إسماعيل يا دلني يقول كيس دعاد عيارته إسماعيل يا دلني يقول كيس دعاد عيارته Soomaaliya 3 gool Djibouti eber Soomaaliya 3 gool عوابين كلو تاريخية عوابين كلو ديوان كلو قردونو عوابين عيارتودا الصومالي ذو إلى بدون عوابين كي مقدشو عوابين كي صوماليا عوابين كي قروي عوابين كي كسمايو عوابين كي مقعابو أحمد فرصة في عن جول جيبوتي يا لتمدال جول وجول كل هذا وأنا شاكد وين قنيسة 3 جول يا جول 3 جول يا جول يا شاكد وين قنيسة جول كل هذا يا دليل جيبوتي فرصة في عن والله قرر هو كان فيصل اسقي جول يا فيصل فانيل اتريك فيصل صوماليا في الجول اتريك فيصل ايو دلنا يا فيصل لاعب كلو مغعابو اما جولش markaas saddexleeda ayuu shabaqa ku shubay لاعب كلو مغعابو فيصل وابنكي فيصل عوابنكيسي لاعبka markaas lambarka 7 ee qaranka Soomaaliya فيصل ayaa dhalinaya goolka afraad ee ciyaarta waxaan uu ka dhigay goolkiisa saddexaad goolasha triga loo yaqaan ayuu markaas shabaq ugu shubay markan waa laga saaray deeqo macallin tare fursadiisa ugu horeysay uu tuuray deeqo macallin tare ayaa laga saaray laad xora deeqo macallin tare mooysan gaarin kubadaasi waa laga reebay ciyaartina way dhamaatay